السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subax wanaagsan waa idin salaamay. waxaan rabaa si kooban insha Allah inaan hadlo. waxaan rabaa feejignaan yar inaan siiyo dadkii reer banaadir ahay iyo beesha aan ka dhashay Qalmasho si gaar ah. waxaan jeclahay maaragtay inaan horta ka feejignaataan nin oo kadaab ah كثير الكذب وإنسان متكبر inaad maaragtay apologies ku bixinayo meelaha uu soo istaagay iyo klibiyaashan maaragtay baraha bulshada lagu wareejinayo inaad maaragtay orto ka feejignaataan because waxa way apologies oo muaqqat ama temporary ma la aqbali karo fi laxni alqawli ka fahmaysaa si uu hadlayaan ka fahmaysaa ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. marka dad oo hadda aan baranayna ma dadkaas markii uu caytamay uu haddana maartay siniin caytamay sanooyin caytamay caay shakhsi caay famil caay beel dhan ku socoto shakhsi aana waa uu caytamay famil ahaana maaragtay uu soo caytamay beel ahaana maaragtay waa dadku u weeraray oo soo caytamay ma fahantay marka cid oo anaka siyaasaddan uga haysato inuu maaragtay u hiiliyo rabaa dhexdeena inuu soo galo rabaa asagoo maaragtay nin toosan oo saxsan iska dhigayo laakiin insaan oo safiih sifooyinkaasna waa maaragtay waa istaahilaa insaan safiih haddana dhimirka la marka ma idin fasfasirayay ma idin faahfaahinayay waa taqaaniin waxa way apologies oo temporary ma jiro oo ku meel gaar ma jiro muaqqat wax la dhahayo ma jiro waa fahansantiin u maleynaa marka tan kale waxaan rabaa inaan ka feejignaatiin dhalinyaradii horta oo shalay jawaabta u diray markuu caytamayay caydana hadda caay cusub ma aha sanooyinay socotay ma fahanti laakiin shalay maaragtay jawaab oo kulol la siiyey isla markii apologies ku soo daba diray asoo garka xoqanayo oo maaragtay u eg qof oo naxsan oo argagaxsan ma fahanti marka waa istaahilaa apologieskiisii iyo waxa uu sheegayna maaragtay aniga ilaa hadda way degi la'adahay waa la qilaahay ilaa hadda way degi la'adahay marka calaa kulli xaal hal wax ka feejignaada xoogaa yar hadalkiina compromise ka dareemayay compromise iska dhaafa kursigan oo leedinku haysto si gardaracada leedinku haystaa maalin hore waa ka soo hadlay waraaqo maaragtay oo baraha bulshada lagu soo nashriyay oo lagu soo faafiyay aan maaragtay idin fasiray wixii ku qornaay oo isburinayo wax isburinayo ma la sheegan karo in maaragtay idinka aad tihiin dad kale wax ka dhacay oo awood maaragtay awood dawladda loo sheegtay awood dawladana loo sheegtay waxa la sameeyay ku qornaa laakiin waxa qofka markii uu yahay qof oo victim oo la dhibaateeyay wax laga xoogay hadii uu yahay hadalkiisa ma isburinayo marka meelihii wax iska burinayo waa idin tilmaamay waa aragteen ma ku soo celinay marka hadda waxa waaye hawlo kale ku jiraan ay ku maqan ku mashquulsan yihiin inay dawladda ka dhaadhiciyaan in maaragtay idinka iyo ayka markii doorashada ay dhacayso leedin tartansiyo marka si idinka uu guuleysan doontiin qof murashax haddana qof ay xidid yihiin guddiga doorashooyinka uu ku jiro wili guddiga doorashooyinka uu maamulo si uu guuleysan doontiin marka waxaas dhan waa leedin soo maleeyay waa leedin soo degay ma fahantay kursigan idinka iska leh cidda rabtana idin la tartanso kursiga idinka ma dhaxeeyo dad xidida ma tihiin beelaha banaadiriga xidid ma aha beela maaragtay oo walaalo ku beela maaragtay maxaa la yiraahdaa qaraabo ku deegaan way kaliya laakiin dadka xididka la tartansiyaa dadka xididka maaragtay kursi ka wadaaga ma fahantay marka see yani leedin tartansiina kursi idinka ma dhaxeeyo maxaa la yiraahdaa xidid idinka ma dhaxeeyo marka xafiisyada dawladda lagu wareegaa si maaragtay dawladda loogu soo qanciyo inay guddiga doorashooyinka oo fit la dhahayo ogolaadaan ansixiyaan in maxaa la yiraahdaa tartanka lagu soo daro marka wanis oo tartanka la soo geliyna maxaa la yiraahdaa ma ku guuleysanaysiin
ma fahamta waa idin soo tilmaamay marka laba siba mid yani in maaragtay erge la qaybsado haddana laba beel ma qaybsanayaan saddexa qaybsanayaan erdigada markii saddex loo jibiyo oo beel hal beel ay iska dhigta lamo waa markaas maxaa la yidhahdaa 1/3 la siiyo ergada laga siiyo adiga jaaniskaaga aad u yaryahay adigana waxaad tahay qofka kursiga xaq u lahayaa tahay ma fahamtay meel ay ku soo caddayn karaan in anaga kursi ka qaadanay ma jirto waraaqii isburinaya oo aragteen oo maaragtay facebooka maalin hore la soo dhigay oo aan maaragtay ka hadlayay taasaana tilmaamayso ma fahamteen marka compromise iska dhaafa feejignaada walaalayaal intaasaad idin dhihi lahay apologies oo mu'aqad ah oo been ah oo insaan kadaabi afkiisa ka soo baxayna anaka mana la soo marsiin karo intaas idin dhihi lahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh